aan iska dhicinayay nooryaan qowlaysato nooc walba isugu jirta dhiig miirato dadka jecel inay ku dul noolaadaan advantage ka qaataan baan iska dhicinayay cawaale aadanka aad soo hadal qaaday waad aragtay markuu wareeray oo labada dhagood qiiq ka sii daayay oo markii ugu dambeysay yiri waa ka bax waa carara orod istaabto anu laakiin waa diiday inaan orod istaabto heeskayga ay ka saareen marshala soo duubo mana isdhiibayo weligay iyo allahay noloshayda inta ka dhiman isma dhiibayo daahir cali sow nin raga oo boqolow ah codkaa duuba boqolow laandheeraa oo nin raga ah oo laandheeraa oo ilaahay islaam yaqaan oo madaxa tima ku leh oo nasabad leh oo sharaf leh oo karaamo leh inaad tahay raalli ahow ku iraahdo maalinki dhowta aniga la wada hadlaynay haddii hadal khaldan dhankayga kaa soo gaaray raalli ahow aniga waxaad igu samaysay sababtaan kuu cafiyey waxaa weeye qiraalka horta caawo maadaama aad joogno nin waa maasantahay nin gobo oo reer mudugaa tahay kun jeer eedaga raali ahaanaysaa cabdi saamax ana waa kaa dalbanaya rag waa islaayaan wax kastaa dhex mara niyow horta adigu weliba buraa joogtaa waxa cawaal lagu sameeyey ada laguma samey adigu waa caybata adigu waa dagaalantay ninka la baabaxshay cawaale ninka la gaarsiiyey ilmihii isaga uu dhalay inuu salaami karin waa cawaale ninka xaafad kasta laga galay adoo xaafadaha lagama gelin waa caymataa adi burbuleen weyn dhinaca familiga kuguma dhicin meelaha kale lagaala dagaalaya calaa iyo xaal habeen dhaweyto markii arrintaada ka hadlay waxaan wada hadalnay iskalaaji saa darteed laba arrimood waa rabaa inaad iska dhammayso hadday suurtagalkaa taadi oo habi ku taha anigoo iskalaaji oo hadlaan waxaan ku nino xuraan ah ninkaas oo halkay dadkii qalbigiisa ay taabataan ka mid ahaa markuu burbuleen ku dhacayaan ku idhi qofna kuma faraxsanin weelkii inuu arko asoo burbuleen haysto si gobonnimaha uu hadlay iyo gobonnimo ka raac ninkaas waa iscafinay wax inaan luuq ka hadlo ama xantana wax macnaa ii sheegi mayso ninkaasi waa la dagaalnay dhibaataynay isagana waa dagaalamay haddana waa xaldhalay baa laga noqday niyo ninka iscafiya wuxuu igu yidhi bal asaga iswareysta marka go'aanka adaa iskale inaan bareefad isku wareysanno iyo inaan buubli isku wareysanno waxaa ka qabta fikirkaas inaan isu kiinkeena adii iskalaaji halkan soo saaro oo wada hadashaan wixii aad ka qabta go'aankaas iska laakiin iskalaaji kuma xira awowgiina kuma xira aniga adiga wanaaggeena iyo walaalnimadeena iyo xiriirkeena iscafinteena iyo laandheernimadeena islaam xaarashadeenna qofna magan loogama aha hawiyi daaradu magan loogama aha shaksina magan loogama aha waxay dhalay waa saa u tiri nin ragahoo wax ka bedeli kara lama jiro ee hooyo dhashay niyahow waa mahadsan tahay iskalaaji horta anigii asaga yaa noo garnaqay mataqaanaa hadda ka hor maamooyin baa noo garnaqay majaarteena labadii nin oo waxaana ugu horreysay oo maamooyin u garnaqaan ragga soo rag uma garnaqo islaami eedooyinkeena noo garnaqay islaamiya eedooyinkeena hayn warkoodii markaan qaatay oo aan halkaa ka baxay haddana isla saq dhexebu haddana hawshii bilaaba maamooyinkiiba haddana kusoo noqono maxaa dhacay baa layidhi anigu waxaan ku yidhi iskalaaji hal eray oo aan ka ahayn labadii ninoo majeerteen oo ugu horreyso islaama u garnaqeen baan nahay oo aan ku yidhi male libintiinuu qariyay see u dhihi kartaa ereygaasoo haddana igula dagaalanaya ilaan ma fiicna dadka libintooda in la qariya moogta anigu waxba uma qaba hadda magaaladu joogaa maalowta waxaan isaga soo horbaxnay makhaayad halkaan islaan eedaday leedahay wax aan u qabo ma jirto asagii baan si kasta inta yeelay la daaweyn waaye cawaale aadan waa la isugu tegey sidaa hadda sheegaysay asaga iyo adiga iyo cid walba iyo majaarteen waa la isugu tegey macaa reerkiisii baa la dhaafiyey waa la diray soomaa wiilkiisa kiyara ahaa aakhira asna loo diray soomaa laakiin ani sakariye kuma jiraya may dhegaysadee asagana waa la diray cabdulaahi boqol aniga ma ahayn cabdulaahi boqol asagiina waa la diray soomaa iskalaaji oo aniga ma ahayn dee waa ogahay xamar buu joogaa soomaa cid walba markuu baabi'iyey yaa u soo haray adiga bas anigii 3 sano markii ila dagaalaya waa qaxay Vancouver baan u qaxay oo ka soo xabada ridi jiray
hadda marka iskilaaji magaaladii boorin bay ku noqotay toronto ahayd keligiis fanaaniintii oo dhan markii baabi'iyey oo lala baabi'iyey ilaa isaga keligiis waxaan baabi'in karaa uu dad ku diray magaaladii oo dhan eber bay noqotay boorin isaga iyo keligiis iyo maamooyinkii baa ku soo haray kowdhe hadda haddaad tiraahid aa idin heshiisiyo oo aad tiraahid caawa iskilaaji adigu heshiiyo aad tiraahid oo na heshiisiisid berri subax uu bilaabayaa anigu hadda ku jiro saas ma samayn karo marka aan ku jiro anigu hadda soo intaan kuu imid si raganimo leh kuma dhihin warniyahow cafigaagii waa qaatay kaygana qaado nabadayso kuma dhihin lagama yaaba inaan dib dambe isku kaasoo madoobeeyo ma laakiin midaan ku sheega horta ana ku jiro iskilaaji waa ogyaana ninka informationka dhan hayaa mugta aniga haddaan heshiisiiyo oon dhoo ninkaan xagga aan ka marno iskilaaji kuuma safaadaay wuxuuse kugu safaaday waxaa waaye xeerada salkeedii ayaan fadhiyaa ninka maadaa xukumaa fiiri ma maqashay maxamedow dhiiqada adaa ingilista dhaxda aga jiraa maqashay ninka maadaa xukumaa fiiri aniga waxaa kusoo goobayaa iskilaaji haddaan dhaho oomaan xagga ka mar dibdib kugu soo laabmaayo horta niyow ninka ka baqaya anu maahi fiiri ma xadka maqamis laakiin daado ku fiicanta naftaada muddo dheeraad magaalada khadkii waa kaa xumaaday niyow warshaashadda u garaaca odaga aniga ma lay maqlaa